halkaan u nimid si aan u ogaano habka loo hubiyo ama loogu sameeyo inspectionka diyaarad kasta oo rabta in laga diiwaan geliyo dalka Soomaaliya runtii waxaan isleenahay waa guul aad u weyn oo muhiim ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan way u soo hoyatay gaar ahaan bahda duulimaadyada ama civil aviation sidaan wada ogsoonahay mushkilooyin badan baa ka jiray dalka oo diyaaradihii ama waddanka ka diiwaan gashanaa burburkii ka bacdi inaysan ka dhicin sida hadda maqlayseen waa diyaaradii saddexaad oo laga diiwaan gelinayo dalka laga diiwaan gelinayo marka waxaan rabnaa diyaarad kasta oo laga diiwaan gelinayo ma aha inay si maxaa la yiraahdaa laablaab ay ku soo gasho sida ugu muhiimsan oo rigorous checking loogu sameeyo checking ama hubin aad u xeel dheer in la ogaado diyaarad kasta oo waddankan laga diiwaan gelinayo inay tahay diyaarad u qalanta inay duusho oo ay dad qaado oo adduunka meel kasta adduunka midna markay tagto aysan ku dhacaynin imtixaanaadka ama checking ama hubinta la marsiinayo inaysan ku dhicin marka run ahaantii aad baan uga mahadcelinaynaa dadka khubarada iyo aqoon-yahanada kala duwan injineerada qaybaha kala duwan oo maanta hawshan na tusay sida looga sameeyo diyaarad kasta sida loo hubiyo oo loo mariyo ama checking la mariyo markasta la rabo in laga diiwaan geliyo waxay kamid tahay waxyaabaha aan isleenahay dawladnimadu way ballaarinaysaa inuu aerobaarkan ama uu yeesho wax kasta oo muhiim u ah inuu noqdo aeroboor caalami ah hadday noqon lahayd qaabka iyo siduu u dhisan yahay iyo samayskiisa hadday noqon lahayd badqabka dadka passengerska xamuulka ama diyaaradaha hadday noqoto marka qaybtan waa qayb uga mid muhiim oo kamid ah hawshaas waxaan rabnaa si aan diyaaradahan ama ganacsatada Soomaaliyeed ugu baahan inay waddanka laga diiwaan geliyaan sidaan ogsoonahay hadda wixii ka horeeyay qofka Soomaaliga markuu ramo diyaarad ama soo kiraysa ama soo iibsade maadaama aysan jirin diiwaan gelin laga diiwaan geliyo dalka inuu ku qasbanaa inuu waddanka la tago waddanka la diyaaradda ka diiwaan geliyo oo calaamad waddanka la leeyahay inuu ku soo qorto laakiin taas inaan maanta ka baxnay hadii la yiraahdo ama 6O ama 6 Oscar in diyaaradda la marsiinayo oo diyaarad kasta oo la siinayo markaan iska jeegarayno oo aan hubino inay tahay mid istaahisha inaan diiwaan gelino in saas loo diiwaan geliyo marka run ahaantii waxa weeye xisaab aad u weyn baa yaa sugaysa dadka raba inay diyaaradaha iska diiwaan geliyaan oo nooc kasta oo bool yar oo meel ku xiranba in la hubiyo laga hubinayo gudaheeda iyo dibaddeedaba marka hadii la yiraahdo anagu waxaan rabnaa airportkan inuu noqdo airport caalami ah dadka imaanaya iyo dadka diyaaradaha imaanayaaba inay noqoto meel la isku haleyn karo oo lagu isku soo aamini karo amnigiisa la isku haleyn karo inuu yahay maxaa la yiraahdaa worthy ama meel diyaarado waaweyn diyaarado caalami ay imaan karaan inuu yahay mid u qalmo inaan ilaalino tan waa qayb kamid ah xagalo kamid ah maalin dhaweed waxaan dhagax dhignay hangarkaas oo asaguna muhiimadda ay tan leedahay oo kale ayuu noo leeyahay markasta sidaan maalinkiiba meesha uga sheegnay diyaaradahan aan waddanka nooga diiwaan gashan ama kuwa kale oo isticmaalayaba waa inay heli karaan meel ay ku samayn karaan dayactirka ama maintenance yar oo u baahan yihiin inay waddanka gudihiisa ku samayn karaan aysan u baahan haddii olyo laga bedelayo ama taayir yar laga bedelayo inay waddan kale u dhoofaan oo meel kale aadaan inaan laga helin ceeb bay nagu tahay marka ganacsatada Soomaaliyeed waa ku dhiirigelinayna dhammaantood inay qayb ka qaataan horumarinta dalka hadday qaybta infrastructure ka tahay ama qayb kasta oo kamid ah siiba mas'uuliyadana anaga hadda ka hadlana civil aviation-ka iyo airport-ka howlahiisaba in waa u furan yahay albaabadu waa u furan yihiin inay ganacsatada Soomaaliyeed inay qayb ka qaataan horumarinta dalka waa wax lagu leeyahay inay waddanka ay ka ganacsanayeen oo ay ka sameynayeen ganacsiga fiican horumarkiisa iyo qurxintiisana inay qaybta uga aadan inay ka qaataan annagoo markasta rabna aan ahayn inay tahay humanitarian ay soo sameynayaan ganacsigooda inay ku soo jeediyaan inay dalka dib u dhiskiisa iyo siday uga qayb qaadan lahayn horumartiisaba inay qayb weyn ka qaataan marka run ahaantii waan u hambalyeynaa diyaaraddan Juba Airways oo maanta runtii martay haddana weli marayso ku jirta imtixaan adag oon rajaynayno inay ku baasto dadka ku hawlan oo hawshan ku jirana waa dad u tababaran oo la rabo inay marsiyaan sida ugu muhiimsan oo diyaarad kastaaba looga baahan yahay inay noqoto markay waddan kala tagto inaysan ugu soo noqon oo aan la dhihin meeshan xagga lagu soo marsiyay testiga iyo checking xagga lagu soo marsiyay inaysan ugu soo noqon si fiican isaga adkeeyaan maxaa dhacay lama qarin karo oo wadamo kale ay tagaysaa waxaa dhici kara hadhow inay haddii si aan sidii la rabay ahayn loo marsiyo
inay ama shilal iyo wax kala keenaan marka waxaan ku adkeynay dadkaas injineerada oo ka shaqeynaya hawshan oo imtixaanka ku jira inay sida ugu muhiimsan oo ugu adag in loo marsiiyo markaas ka bacdi diyaaradda ku soo baxda in la diiwaan geliyo oo ay qaadato in la siiyo diiwaan gelinta ama registrationka ay leeyihiin civil aviationka Soomaaliya ay leeyihiin marka waan u hambalyeynaa Juba Airways iyo ganacsatada Soomaaliyeed waan u hambalyeynaa Soomaali hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo iyadu shaqo aad u muhiim ah sameynaysa sidoo kale madaxda iyo mas'uuliyiinta airportka aadan cadde oo ayaguna hawl aad u culus ku haya insha Allah taala aan rabnaa inaan ka wada shaqeyno airportkan bilicdiisa iyo amnigiisa iyo habsami u socodkiisaba inaan si fiican uga wada shaqeyno airportku uu noqdo maadaama uu yahay wajigii dalka looga fiirinayay inaan si fiican uga wada shaqeyno sidii uu noqon lahaa mid u qalma inay ummado kale iyo dad kale